waryadahan hello waqumayo xor xiljido soo laabatay. Okay, so sheekadii baynu kusii soconaynaa ku saabsanayd naagtii Mona Lisa iyo de ninkii Leonardo DiCaprio. Markasta waxaan rabaa inaan idhaho Leonardo DiCaprio waa actorkaasi Leonardo da Vinci ya marka oo si fiican baa de idin yar fahansiinaya idin yar iftiimsiinaya haddaad fahmaysiin waaye. Horta wallahi bilaa waxaa igu soo dhacday goodhawey toole taariikhda haddaad u fiirsatid historyga haddaad u fiirsatid maxaa la yidhaha calendarka ama dee taariikhda nambarada calendarka sa loo akhriyo wax kasta haddaad u wada fiirsatid ya waxaad ogaanaysaa adduunkani ya inay tahayba Truman Show ya Truman Show filinkan horta daawada wallahi it's funny oo dee waxa weeye basically game meesha la dhigay oo dadkii lagu leeyahay ciyaara ya haddaad u fiirsatid ya obviously ilaahay baa waxaan oo dhan ka weyn ya oo de ilaahay haddaan lagu yidhaaho basically the universe baa ka weyn soo maaha de ya ilan awoodiisa qofna ma samayn karayo laakiin intaa wixii ka sokeeya ayaa waa kii shaydaanku yidhi aniga ifasaxo ilaa iyo maalintaad adduunka dhamaynaysid waan ciyaarayaa gamekeyga waxay ka sameeyeen scientifically theory moogtahay waxay dhahaan game theory way bixiyeen ya the theory of game ya marka shaxdan ya chesskan gamekan se loo ciyaarayo oo dee loo tartamayo wadanba wadanada kale ula tartamayo qofba qofka kale ula tartamayo maskixiyan ya oo waxa soo bandhigay laba nin oo la yidhaaho laba nin magacyadoodii waa iloobe laba nin midna wuxuu ahaa I think mathematician buu ahaa midna wuxuu ahaa economist ya oo gamekooda de sida resourceka loosoo kala dhacayo sida conflictyada looga shaqaynayo waxaan oo dhan waa wada game weeye yaa la ciyaarayo dadka qaarkoodna gamamka markay ciyaarayaan ay ku dhex jiraan waxay u malaynayaan inay dee just dhaq fun iska tahay oo iska qoslayaan sida Soomaalida ma u fiirsatay horta wallahi billah wax kasta inay funny tahay oo iska qoslayaan oo markaas ay saxabka tumayaan yeah it's a game laakiin waa game la isku baabiinayo yeah ilaa in boqolkan proxy warka dadkan loo soo dhiibay xitaa ee lagu leeyahay kaalaya isdagaala oo waxaan isku sameeya oo kala adkaada oo qabiilkan isagaa ka adkaa laydin leeyahay inay bugtahay horta ma ogtihiin ya xitaa gamamkan qabiilada ku saabsan inay bug yihiin ma ogtahay oo dee historically haddaad u eegtid waxaa la yidhaha feudal society ama the feudal system way ya waa nin xoole oo maal leh oo dee soomaalidii hore haddaynu kasoo qaadno geel ama dee lo ama beer weyn meel dhul leh ya ninkaas ayaa dad u shaqaynayaan oo dad buu soo dejinaya dhulkiisoo way la shaqaynayaan oo way ku ag nool yihiin basically ninkaas ay ku hoos nool yihiin ya ninkaasi waa nin magac leh marka magaciisii baa la qaadanayaa dadkii waxay noqonayaan clan hebel ninkanaaba lagu abtirsanaya ya ninkanaaba lagu abtirsanaya oo haddaad u fiirsatid wadankan iminka Scotlandka yidhaahaan iyo Irishka maaragtay magacyadoodan Mac baa ku wada jirta Mac waa clan hebel ninkan Donald la yidhaaho hadduu McDonald clanku yahay hadduu Macintosh uu yahay clankan lagu abtirsanayo maaragtay ninkani waa nin shakhsiya markaasaa dadkii kale oo dhan maaragtay ku hoos noolaa ee la shaqaynayay qaarkiid askartiisii ahaayeenoo dee nimankii askarta uu ahaayo gruubyadii oo dhan ama xitaa nimankii beertiisa uga shaqeynayo kulligood baa magacaa wada qaadanaya ya marka waxa weeye ninkaas inuu dhalaa la iska dhigaya marka Soomaalidu markay imka ku abtirsato wallahi is funny aniga wiilana saxaaba maalintii dhaweytoolo yidhi waxaad iga dhaadhicisaa nin baa abtirsanaya oo 16 17 buu oday ugu tegayaa nin kale abtirsanaya 6 ama 5 buu ugu tegayaa odayga it's the same odayna weeye marka say waxaan isku waafaqayaan it makes sense waxaan inay bug tahay marka wada ogaanaysaa because haddaad u fiirsatid waxay ku leeyihin 3 generation ya oday hadduu 3 wiil dhalay ya let's say oday baa 3 wiil dhalay ya 3 generation 75 to 100 sano ya ayay 3 generation kaasi dhalan de lagu dhali karaya 3 generation ka between 70 to 100 years okay
Soomaalida haddaad u fiirsatid taariikhdooda oo dhani yaa iminka dadkan qabiiladan taariikhdooda haddaad kulligood u wada fiirsatid ama bari ha dega ama waqooyi ama south kulligood taariikhdooda waxay gelayaan straight away berigii adal empire-kii yaa oo dee ahayd 17 maxay ahayd 17th century Soomaa 1600kii yaa kulligood Soomaalida qabiiladoo dhan baa saas meeshaas wada gelaya so waa marka halkaas laga waa dee adal empire-kii markay burburtay ayaa qabiiladan ay samaysmeen yaa ile empire bay ahayde empire-kuna xitaa wax ay fahmayaan dadka qaarkood empire-ku marka lagu leeyahay waa empire weeye boqortooyo badan baa empire-ka ku jirta Rome empire bay ahayd laakiin boqolaalo kumanaan waxa ku jiray boqortooyo ama kingdom yaal baa ku jira yaa marka reeruhu haddaad u fiirsatid waa wada kingdom yaal yaa laakiin awdal aw ile waa holy awliya waa holy landkii wadankaa wada holy landkaa waxa ku jiray empire bay ahayd waxana ku wada hoos jiray maxaan ku idhaahaye boqortooyooyin yaa ileen boqortooyooyinkana waa reeraha weeye yaa marka haddaad u fiirsatid reer hebel intaasoo ciyaalun bay dhali karayaan inta kale waa dadkoodii ku ag noolaa ama ku hoos noolaa ayaa magacii iyaguna qaadanaya simplest example haddaad u fiirsatid yaa imiga well actually haddaynu dib ugu laabano 1600kii markii adal empire-kii burburtay ilaa iyo hadda haddaad soo haddaad kasoo bilowdid maxaan ku idhaahaye 600kii dee adal empire markay jirtay oo ilaa hadda meelaha waa 500 iyo something soo maaha yaa dee 500 iyo sano inteyo generation baa markaa dhalanaya yaa oo marka waxaad leedahay oday halkaa qabiilka ayaba kumanaan nin dhalay